dhawaada videogan like saara share gareeya. Waxaan dhageystay clip laga duubay qadan qaran. Qadan ayadoo live ku jirta isma aysan ogeen. I don't know how qof ma artay accountkiisa live ugu jiro uusan u ogaani karin. Ma ilmaha live ka taabteen ma aqaano. qadan ayadoo ma aragtay live ku jirta ayaa waxa dhacay gabara u soo gasho waxay tiri hodan ayaa dhimatay. الله ونحرست ولا شين هذا عبد الرحمن جنة الفردوس الله كورابيو قادن هذا الكي وجبابتي آيات وحوايو صومالي ذا وقف العليين هذا الحن وقف إسلام يقف ضمير لا وسن قف إسلام أوردنتي وسن أقورين أيترين qadan horta waxay hilmaantay markii kaamarada ma aragtay wiilkeedii uu tusay way argagaxday oo mali maqlaayay warmay maqleyseenay tiri laakiin waxa ay hilmaantay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala arkayay maqlaayay hadallada ay ku hadlayso hodan iyo qadan Allah u naxariisto hadda ka hor meel iskugu dhaceen ma ogi laakiin se qadan waxa ay cadeysay inay qof uqdad dilootay ay tahay calooshan weyn iyo candhadan balaaran iyo afkan ma aragtay 3 mitir ah inuusan aqli ku jirin ma aragtay aan ogaano marka horena waan ogeyn laakiin say saxiixa ku duugtay qadanay waxaan ku leenahay Ilaahay ha ku soo hanuuniyo uqdada ka buurana Allah subhanahu wa ta'ala ka caafiyo sababtoo ah gabar muslimad ah oo walaasha oo Soomaaliyeed oo ma aragtay caana ayaa lagu dhahay way dhimatay erayga tirina waa eray aad iyo aad u foolxun sabab waxayna na tusaysaa dadnimadaada inta ay gaarsiisan tahay aqligaada inta uu gaarsiisan yahay iyo xumaanta iyo xaqiga kugu jira inta ay gaarsiisan tahay na tusaysaa marka waxaan leeyahay Ilaah ayaa ku fashiliyay qofka markuu xumaantiisa badato fashil ayaa ku dhaco fashil ayaa kugu dhacay waxay ku tusaysaa midaas ayada ah in ma aragtay albaabka gadaashiisa aad dadka ku cuntid meeyti iyo ma aragtay cid nool cid aadaysid inaysan jirin dadka meeytida caayo dadka madaxda caayo dadka ma aragtay dadka madaxda caayo dadka ma aragtay waa dadka ugu xun waayo sideed ku